وفدي وهجامينيو قدوميها هايدا بركعياشا iyo dibadejinta Somaliland Cabdikariin Aadan Xinif ayaa wuxuu shir uga furmay wadanka Djibouti muddo 3 maalmood ah. Shirkani ayaa waxa ku wehelinayay safiirka Somaliland u fadhiya wadanka Djibouti iyadoo ay shirkani soo qaban qaabiyeen hay'adda qaxoontiga u qaabilsan adduunka ee UNHCR. hay'adda qaxoontiga adduunka ayaa shir ugu qabatay wafdi ka socda dalka Jamhuuriyadda Somaliland wadanka Djibouti. sidoo kale wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha Somaliland ayaa waxay booqdeen xiro ku taala dhinaca waqooyi ee wadanka Djibouti oo ay ku soo barakaceen dad ka soo qaxay wadanka Yemen. wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha Somaliland ayaa sidoo kale waxay booqan doonaan xiryaha qaxoontiga ee ku yaala wadanka Djibouti. Bismillahir Rahmanir Rahim. waxaanu nimi halkan maalintii Sabtida waxaanu nimi in aan halkan ka wada hadlo hay'adda UNHCR anagoo ka wada hadlaynay dadka qaxoontiga Somaliland yaala iyo sidii loola macaamili lahaa iyo sidii loo maamuli lahaa iyo sidii kaam loogu sameyn lahaa. shalay waxaanu tagnay gobolka Obakh magaalada madaxdiisa halkaasaanu ugu tagnay oo soo eegaynay qaxoontiga Yemeniinta halka yaala iyo sida loola dhaqmo iyo xirada ay ku jiraan iyo waxyaalaha loo qabto. runtii wax badan aan ka soo kororsanay saakana halka waxaan uga furmay shirkii anaga iyo mas'uuliyiinta UNHCR qaar kamid ah waanu socon doonaa kulli ilaa 2 maalmood soo socda hadii Ilaahay ka dhigo. waxaan rajaynaynaa waxna anfaca Somaliland anfaca inaan kala noqono ayaan rajaynaynaa insha Allah. aad baan idin salaamayaa safiirka iyo safaaradda Somaliland joogta Djibouti dalkan oo si fiican oo dawladnimo loo soo dhaweysay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. بعد TV-gana aad baan kan sidoo kale idin mahadnaqayaa dalkan aynu joognay Djibouti oo iyaguna si fiican noo qaabilay aad iyo aad baan mahadsantihiin dhamaan ka soo qaybgalayaasha shirkan UNHCR ay hogaaminayso. anagu waxaan ahay team 6 xubnood ah oo ka socda Somaliland una yimi xaaladaha qaxoontiga si aan wax uga soo baranno maadaama qaxoonti badan dalkayga joogo oo maxay ahayd bilaa sharci ku jooga si aan uga soo faa'iideysano wax uga baranno dad qaxoontida Djibouti ay halkan ku hayso sida ay ula macaamisho iyo sida waxyaalaha si wax loogu qabtay. hay'adda qaxoontiga adduunka ayaa shir ugu qabatay wafdi ka socda dalka Jamhuuriyadda Somaliland wadanka Djibouti. Maxamed Jaamac Waale warbaahinta qaranka Somaliland Djibouti.